weerarada ay isweydaarsanayaan Iiraan iyo Israa'iil ayaa sii socda maalintii afraad iyada oo colaaddu cirka isku shareerayso. Saamayn noocee ayay dhanka adduunka ku yeelatay haddaba? foostida shidaalka inay kor u kacday boqolkiiba 20 dib kor u kacday intii ay ka ahayd dagaalka horteed waxaana laga yaabaa hadduu dagaalku sii dheeraado oo usbuucyo socdo inay saameyn intaa ka badan ku yeelan doonto. waxay saameyn kale ku yeelan doontaa in maraakiibta shidaalka ee maraya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hor imaaday qorshe ay Israa'iil rabtay inay ku disho hogaamiyaha Iiraan. saamayn inteen leeg ayay bulshadu ku leedahay muuqaalada garaadka macmalka lagu sameeyo. warbixin ayaanu iyadana idinka haynaa iyo waxa sidoo kale maqli doontaan. shaqadan ah in aan isku xiro dadka dhiigga shubay iyo dadka dhiig u baahan waxaan waday muddo ku siman 12 sano gudahooda marka lagu daro sanadkan hadda cusub. waa Cabdulaahi Cabdi Muuse oo ka shaqeeyay dhiig u raadinta dadka bukaanada ah ee ku nool deegaanada Soomaalida. mar kale ismaqal wanaagsan. subaxna wanaagsan dhegeystayaal mar kale barnaamijka saaka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo Cabdishukur Haybe. waxse intaasoo dhan ka horeeya warkii caalamka oo inoo akhrinayo Nimcaan Cismaan. Nimcaan. mahadsanid Cabdishukri. milatariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen goobo gantaalada laga rido oo ku yaala bartamaha dalka Iiraan iyada oo colaadda labada dal ay socoto habeenkii afraad oo xiriir ah. wakaaladda wararka Iiraan ay leedahayna waxa ay ku waramaysaa in la duqeeyey magaalada Barjin la yidhaahdo oo u dhow caasimadda dalkaasi ee Tehraan. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in gantaallo badan oo laga soo tuuray dhinaca Iiraan saacadihii hore ee maalinnimadii Isniintii ay nidaamka difaaca Iron Dome-ka loo yaqaana ka hortageen khatar badan oo halkaasi ka dhalata. waxaa jira haddaba warar sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Qudus iyada oo maamulkuna ay ku booriyeen dadweynaha in ay dhuuntaan ilaa iyo amar dambe. dhanka kalena madaxda wadamada la yidhaahdo G7 ayaa waxa ay gaadheen gobolka Alberta ee dalka Canada halkaasi oo uu ka socdo shir madaxeed 3 maalmood ah. arrimaha laga xaajoonayo ayaa la filayaa in ay u badnaadaan xiisadda ka soo cusboonaatay Israa'iil iyo dhinaca Iiraan. warar dheeraada oo laga helaya dalka Hindiya ayaa waxa ay sheegayaan in baadhayaal ku sugan dalkaasi ay heleen sanduuqa madow ee labaad ee shilkii diyaaradeed ee Khamiistii ka dhacay magaalada Ahmedabad la yidhaahdo. waxaa la rajaynayaa in qalabka codka duuba laga heli doono tilmaamo muhiim ah oo ku saabsan sababtii ay diyaaraddaasi u soo dhacday. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa faray mas-uuliyiinta socdaalka ee federaalku in ay kor u qaadaan dadaalada masaafurinta ah ee muhaajiriinta sharci darrada ah lagaga tarxiilayo waddankaasi. waxa ay arrintani daba socotaa mudaharaadyo waaweyn oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Los Angeles ee gobolka California iyo weliba magaalooyin kale kuwaasi oo lagaga soo horjeedo siyaasadda dhinaca socdaalka ee madaxweyne Trump. dowladda Britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday in sirdoonka UK ee M16 loo yaqaano ay hogaamin doonto haweeney markii ugu horeysay taariikhda. Felicia Matheweli ayaa waxa ay madax ka noqon doontaa waaxda tiknoolajiyadda iyo hal abuurka ee kooxdaasi waxaana ay la wareegi doontaa xilka dabayaaqada sanadkan. ugu dambeyntiina darawalka Ingiriiska ee Lewis Hamilton la yidhaahdo ee shirkadda Formula 1 ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga murugaysan yahay kadib markii uu jiray nooc ka mid ah dabagaalaha oo dhulka hoostiisa mara intii uu ku guda jiray tartan dhacay maalintii Axaddii oo dalka Canada ka dhacay kaasi oo Grand Prix loo yaqaano. darawalkan Britishka ayaa jiray xayawaankaasi oo ka mid ah kuwa aadka looga qadariyay dalkaasi. waxa uu sheegay in dhimashada dabagaalahaasi ay ahayd wax laga calool xumaado. Hamilton ayaa waxa uu ku dhammaystay kaalinta 6aad taasi oo kooxdiisa Ferrari qayb ahaan hoos u dhigtay. wararkii caalamka ee BBC-da waa naga intaas. Cabdishukri. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Nimcaan Cismaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka. sida aad warkaba ku maqlayseen dagaalka maalinkii afraad galay ee u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil ayay duqeymo cusub oo cirka isweydaarsanayaan labada dhinac. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana sheegay in labada dhinac ay tahay inay heshiis gaaraan isagoo intaas ku daray in wicitaano iyo shirar ay socdaan balse Iiraan waxay sheegtay inaysan wax wada hadal ka geli doonin xabad joojin inta weerarku uu socdo. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna yiri
arrintu ma aha dejinta xiisadda balse waa in la joojiyaa inaysan iiraan horumarin awooddeeda nukleerka. wasaaradda caafimaadka iiraan ayaana sheegtay in ugu yaraan 224 qof lagu dilay weerarada israa'iil tan iyo jimcihii. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha soo marisay faadumo macalin abukar oo istuudiyaha igula sugan. faadumo, maxaa u dambeeyey wararka caalamka ee arrintan la xidhiidhay? cabdishukri oo ciidamada difaaca israa'iil ee i d f loo yaqaano ayaa waxaay sheegeen inay ka warheleen gantaalo laga soo ganay dhanka iiraan. waxaay sheegeen in hanaankooda difaaca uu ka hortagay khatartaasi. milatariga ayaa shacabka waxay ugu baaqeen inay markaasi isugu tagaan goobaha nabdoon ee ammaankooda la sugay ilaa markaasi amar dambe. milatariga waxaa kale oo uu sheegay in dhowr goobood ay saakay ku dhaceen gantaalo dhanka iiraan ka yimid oo qaarkood haleelay dhismooyin la degan yahay oo ku yaala xeebta ee badda mediteraneanka. 3 qof ayaa sidoo kale ku dhintay duqeymaha iiraan ee bartamaha israa'iil. 2 haween ah iyo weliba 1 nin oo da-dooda 70meeyada ku jiray ayaa iyagu geeriyooday. dhanka kalena ugu yaraan 74 qof oo dhaawaca ayaa iyagu la geeyay dhowr isbitaal oo goobo kala duwan oo ku yaala bartamaha israa'iil sida ay sheegtay hay-adda gargaarka qaranka ee israa'iil ee magaceedu yahay Magen David Adom. dhanka kalena dhowr qof waxa ay ku dhaawacmeen magaalada dekada leh ee Xayfa oo 90 kilomitir u jirta magaalada Tel Aviv kadib duqeymihii ugu dambeeyey Iiraan sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. waxa ay intaa ku dartay in goobta uu dabka kacay. adeegyada degdega ah waxa ay iyaguna sheegeen in loo gurmanayo dhowr goobood kadib rabshadihii ugu dambeeyey ee Iiraan. faadumo, ka waran baaqyada ka imanaya beesha caalamka ee ku saabsan debinta xiisadda Iiraan iyo Israa'iil? waxa ugu dambeeyey madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay u sheegtay shalay in diblomaasiyadda ay tahay xalka ugu wanaagsan ee lagula dhaqmi karo Iiraan iyo sidoo kale in markaasi la gaaro xabad joojin degdeg ah. von der Leyen waxa ay sheegtay in iyada iyo Netanyahu oo qadka telefoonka ku wada hadlay ay isku raaceen in Iiraan aysan ahayn inay haysato nukliyeer, taasna aysan wax su-aal ah markaasi ka taagnayn. waxa ay markaasi haweeneydan oo horey Israa'iil ugu cambaaraysay waxa ay ka geysatay Gaza, balse waxa ay sheegtay in u hoggaansamid la-aanta Iiraan ee hay-adda nukliyeerka ee qaramada midoobay ay la micno tahay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay markaasi isdifaacdo. shirka G7 oo isna Canada ka furmaya maanta, arrimahan ma lagu soo qaadayaa isna? cabdishukri oo hogaamiyaasha waxa ay horta gaareen magaalada Alberta ee Canada ka hor shirar badan oo qaabeyn kara sida dalalka adduunka ugu qanisan ay uga jawaabaan iska hor imaadkan. marka waaba waxaan dhihi karnaa arrinta ugu weyn ee markaasi shirkan hareysay ee looga hadli doono. indhaha oo dhan waxa ay eegayaan inay dhab ahaantii ku heshiin karaan mowqif guud oo markaasi laga qaato dagaalkan cusub ee Israa'iil iyo weliba Iiraan. dhammaan wadamada halkaasi jooga ma rabaan in Iiraan ay yeelato hub nuclear laakiin kala qaybsanaantu waxa ay si dhaqso ah usoo bixi kartaa marka ay timaado sidii taa loo heli lahaa iyo weliba ilaa xadka dalalkan G7 ay riixayaan in markaasi la xakameeyo Israa'iil oo lagu qanciyo in dagaalkan ay ka joogsato. mowqifka xubin ka mid ah ururkan oo dalka Japan ah ayaana taas caddeyn markaasi u ah in qodobkan uu yahay mid la isku mari la-yahay. dalkan oo dhaqan ahaan aad ugu dhow Tehraan marka loo eego xubnaha kale ee G7 waxa uu si toos ah u cambaareeyay duqeymaha Israa'iil, halka kuwa kale ay ku doodeen xaqa ay Israa'iil u leedahay inay markaasi isdifaacdo. shirkan waxa uu noqonayaa cabdishukri oo tijaabo weyn oo lagu tijaabinayo xirfadaha diblomaasiyadeed ee Mark Carney, ra-iisul wasaaraha cusub ee Canada, isagoo gudoominaya kulankiisii ugu horeeyay caalami ah isagoo ah ra-iisul wasaaraha cusub ee Canada. waxa uu wajahayaa arrimo isku dhafan oo aad u adag, ugu yaraan la macaamilka Mareykanka oo weli ah xubinta ugu awooda badan G7, canshuuraha ganacsiga ee Donald Trump iyo hadalka ku saabsan ku darista Canada ee Mareykanka oo isaguna markaas xiisada ka sii daray. aad iyo aad ba mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Faadumo Macalin Abukar oo wararkii ugu dambeeyey soo dhegedhegaysay ee arrintan ku saabsan Israa'iil iyo Iiraan iyo dunidaba waxa ay ka tiraahday.
dhanka kale aan eegnay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa diiday qorshe ay israa'iil ku doonaysay in lagu dilo hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamanii sida ay u sheegeen 3 mas-uul oo maraykan ah warbaahinta c b s oo bahwadaag la ah b b c da wararka la helay waxay sheegayaan in trump uu u sheegay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu in dilka khumanii uusan ahayn fikrad wanaagsan. nimcaan cusmaan ayaa dhacdadan soo indhaydneeyey oo dhinacayga fadhiya. nimcaan maxay warbaahintu ka qortay dhacdadan? cabdishukriye waa mahadsan tahay. sida ay warbaahinta noocyadeeda kala duwan ay qoreyso wadahadalkan dhex maray madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa waxaa lagu sheegay in uu dhacay kadib markii israa'iil ay weerar ku qaaday iiraan maalintii jimcihii gaar ahaana subaxnimadii hore. intii lagu guda jiray waraysi uu siiyey fox news ra-iisul wasaaraha dalka israel ayaa waxa aanu si toosa u xaqiijinin islamarkaana aanu beeninin warbixinada ay daabacday wakaalada wararka ee reuters kuwaasi uu ahaa in trump uu diiday qorshaha lagu khaarajinayo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan ayatullah cali khamanii. laakiin waxa aan idin sheegayaa ayaa uu yidhi in aan u malaynayo in ay tahay waxyaabaha aanu samaynayno wixii ay ahayd in aanu samayn lahayn waana samayn doonaa ayaa hadalkiisa raaciyey. waxa ay ila tahay in maraykanku uu garanayo waxa isaga u wanaagsan mana doonayo ayaa uu yidhi in hadalkaasi aan kusii dheeraado benyamin netanyahu. sarkaal sare oo israa'iil ka tirsanna waxa uu c b s news wakaalada la yidhaahdo uu u sheegay in mabda ahaan israa'iil aanay dilin hogaamiyeyaasha dhinaca siyaasadda. waxa uu sheegay in israa'iil ay diradda saarayso keliya madaxda dhinaca nucleerka iyo kuwa militariga ee iiraan hogaamiya. uma malaynayo ayaa sarkaalkaasi uu yidhi in qof kasta oo go-aan ka gaadhaya barnaamijyadaasi ay tahay in si xor ah oo madax bannaan uu u noolaado. waa barnaamijyada dhinaca nucleerka. israa'iil ayaa cabdishukriyo markii ugu horreysay weerar ku qaaday kaabayaasha dhinaca nucleerka oo bartilmaameedyo ay u geysatay maalintii jimcihii. labada dal ayaa tan iyo xilligaasi waxa ay sii wadeen duqeymo ba-an oo midba kan kale uu ku beegsanayo iyada oo weeraraduna ay haatan galeen maalintoodii afraad. wadahadalada maraykanka aan idhaahday wadahadaladii maraykanka iyo iiraan xaggee ku dambeeyeen iyaga? cabdishukriyow intii uu weerarkani socday labada dhinac u dhexeeya maraykanku arintan waa uu ka hadlay qoraalkiisii ugu dambeeyey ee social waa truth social barta la yidhaahdo uu ku daabacay madaxweynaha dalka maraykanka arrimaha bariga dhexe ayaa kaga hadlay. waxa uu yidhi iiraan iyo israa'iil waa in ay heshiiyaan isagoo intaasi raaciyey in labada dhinacba ay la gudboon tahay xilligan la joogo in ay joojiyaan colaadda si xal aan ugu helnay ba uu yidhi colaadii hindiya iyo bakistan ka dhex abuurantay tanna xal ayaa loo heri karaa. laakiin marka loo soo laabto cabdishukri oo arinta la xidhiidha wadahadaladii maraykanka iyo iiraan ee dhinaca nucleerka ku saabsan waxa aynu ogeyn in dhowaanihii lasoo dhaafay dalka cumaan uu martigelinayey wadahadalo la xiriira labada dhinac. wareega xiga ee wadahadalada nucleerka ee maraykanka iyo iiraan ayaa markii hore waxaa la qorsheynayey in maalintii axadda ee shalay ay dhacaan, laakiin dhexdhexaadiyaasha gaar ahaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka cumaan ninka la yidhaahdo beder cabdisaciidi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maalin ka hor wadahadaladaasi la joojiyey. aad iyo aad buu umahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa nimcaan cismaan oo soo indhaindhaynayay wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha qorshaha uu ka hor istaagay israa'iil madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku saabsanaa dilka hogaamiyaha iiraan ayatullah cali khamani. weeraradan ay isweydaarsanayaan labada dhinac waa israa'iil iyo iiraane saameyn noocee ah ayaa ka dhalatay dhanka adduunka ilaa iyo haddeer doctor axmed saki faarax iidle oo bartay culumta diblomaasiyadda iyo arrimaha caalamiga kana faallooda amniga gobolka ayaa inooga jawaabaya, wuxuuna u warramay wariyaha b b c da xuseen xasan. ilaa hadda waxaa dhashay inay kor u kacday qiimaha beeralka ama foostada shidaalka ah inay kor u kacday boqolkiiba 20 durba kor u kacday intii ay ka ahayd dagaalka horteed. waxaana laga yaabaa hadduu dagaalku sii dheeraado oo usbuucyo socdo inay saameyn intaa ka badan ku yeelan doonto. waxay saameyn kale ku yeelan doontaa in maraakiibta shidaalka ee maraya marinbiyoodka u dhexeeya imaaraadka carabta xumus iyo deegaanka xumus iyo
dalka iiraan in ay iyaduna noqoto mid culays ku keenta maraakiibta shidaalka ee u qaadaya shidaalka dhinaca yurub iyo gaar ahaan dunida ashiyada kaleba, taasoo keeni doonta in shidaalku uu sii kordho qiimihiisu oo ay maciishadaha wadamada weliba gaar ahaan indiya iyo china iyo wadamada yurub ay aada u saameyn doonto qiimaha maciishada asaasiga walaal. waa tahay marka suurtagal ma tahay dagaalkan in uu fido markaad eegto maraykanka amaba gobolka dhinacyadiisa kale uu kusii fido? waa laga yaabaa haddii uu ballaadho inuu ku fido gobolka intiisa kale, gaar ahaan weliba waxaa laga yaabaa sida iminka ka muuqda oo dowladda ingiriiska iyo ay ballan qaadeen dowladda maraykanku inay difaaca israa'iil qayb ka noqon doonaan haddii ay iiraan sii wado weerarada ay ku hayso tel aviv. taasi marka waxay keeni doontaa inay iiraanna beegsato saldhigyada military uu ku leeyahay gobolka, gaar ahaan ciraaq, suuriya iyo jordan, kuwaasi oo noqon doona taargetka koowaad. taargetka labaadna laga yaabo inuu noqdo saldhigyada military ee badda ay ku leedahay wadamada ingiriiska iyo maraykan. waxay si toosa u saameyn doontaa marka dagaalkaasi in iiraan dhinac looga soo wada jeesto oo reer galbeedka iyo israa'iil oo isla socda ay weerar wadajir ah ay ku qaadaan. arrintaasi dhaawac bay geysan doontaa dhaqaale oo kaabayaasha dhaqaalaha iiraan inuu dhaawac weyn la gaarsiiya ayaa laga yaabaa, laakiin iyadna waxay dhaawac laxaad la gaarsiin doontaa guud ahaan saldhigyada military ee reer galbeedka ku leeyihin, taasoo ku qaadan doonto sanado 10 sano ku dhow inay dib uga soo kowdaan dhaawaca ay u geysato iiraan. ma kuu muuqataa ama suurtagal ma tahay heshiis labada dhinac ay gaaraan? habka iminka ay ku socoto ilama muuqato heshiis midho dhala inuu ka dhalan doono, laakiin laga yaabo haddii ballanqaadka shiinaha iyo turkigu ay iminka isku dayeen inay cadaadis ku saaraan inay israa'iil iyo iiraan labaduba miiska wadahadalka yimaadaan oo wadahadal lagu dhameeyo khilaaf. haddii ay suuro gasho markaa in ay taageero military iyo mid dhaqaale ay ka hesho iiraan wadamo ka mid a kuwa kasoo horjeeda reer galbeedka sida ruushka iyo hadduu ciidankeeda leeyahay shiinaha, waxaa laga yaabaa inuu dagaalka macnihiisu isbedelo marka. laakiin hadday iiraan kelideed sii ahaato sida ay iminka tahay oo ay taageero ka weydo wadamada dariska ah iyo wadamada kasoo horjeeda danaha reer galbeedka ee bariga dhexe, waxaa laga yaabaa inay noqoto wadan labaad oo la isugu tegey oo sidii libiya iyo syria ciraaq loo galay iyadana loo dhibaateeyo. kaasi wuxuu ahaa doctor axmed saki faarax iidle oo bartay culumta diblomaasiyadda iyo irahama caalamiga kana faallooda amniga gobolka oo inooga jawaabayay saameynta dagaalkan ilaa ee haddeer ka dhalatay iyo waxyaabaha dhowaan laga filan kara. halkaad nagala socotaana waa b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. iyadoo dhowaan la xusay maalinta dhiig shubista adduunka oo laysku wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay in dadku shubaan dhiigga si loogu badbaadiyo dadka bukaanka ah ee u baahan, ayaa waxaa jira 2 dhalinyaro oo Hargeysa ku nool oo si iskooda isku xilqaamay in dadka dhiigga u baahan iyo kuwa u shubaya ay isku xidhaan. cabdulaahi cabdi muuse ayaa ka mid a 2daas dhalinyarada, waxaana uu muddo 11 sano ah ka shaqaynayay hawshan dhiig u raadinta dadka bukaanka ah. waxa uu la hadlay b b c da isaga oo sheegay in dadka dhiigga shubaya iyo bukaanada uu isku xidho isagana uu adeegsanaya baraha bulshada, gaar ahaan facebooka, oo uu soo dhigo baahida dhiig ee jirta aan idhaahdee iyo nooca loo baahan yahay. weriye salebaan saxansaxo ayuu uga warramay hawshan iyo waxyaabaha ku dhiirigeliyey ee isaga ku qasbay in uu mas-uuliyadda iyo isxilqaankaas uu qaato. shaqadan ah in aan isku xidho dadka dhiigga shubay iyo dadka dhiigga u baahan waxaan waday muddo ku siman 12 sano ugu dambeeyay marka lagu daro sanadkan hadda cusub. muddadaas waxaa jiray in dad badan oo dee u baahnaa dhiig ina aan la helay, dad badan oo iyaguna si tabaruca doonayna iyaguna dhiigga u shubaan laftigoodana laga shubay oo iyadana la gaarsiiyay cid alla ciddii u baahnayd. marka muddo adigu 12 sano baan hadda wadaa. marka adigu sideebaad hawshan ku bilowday ama shaqada ku bilowday, maxaa si kugu dhiirigeliyay? hawshan waxaan ku bilaabay markii aan ahaa secondary-ga ayaa wax dhacay in macallinkii noo dhigi jiray maadada science ama biology uu noo sameynayay isagoo xiisada qayb ka mid ah inuu ardayda u eego nooca dhiigooda ama blood type-kooda ama blood grouping. marka taasi waxay igu dhiirigelisay marka hore waan laftigaygu science-ka aad u jeclaa, caafimaadkana aad u jeclaa, inaan isla maalintii kalaaska loogu sameynayay ardayda kala qayb qaatay oo ahaa qofkii caawinayay macallinka. intaa
wixii ka dambeeyey waxay ku dhalatay marar badan baan arkay iyadoo ama masaajidada meelaha qof bukaana dhiig looga baahinayo dadna waxay ku dhalatoon inaan ana adeegsado idhaahdo sidaad qofkii dhiig u baahana dhiig uga heli lahaa qofkii dhiig u baahan inuu shubana u heli lahaa inuu shubo marka waxaan adeegsaday un social media platformska Facebook oo kale inaan baahiyo qofkii dhiig u baahan sidii baan ku waday dad badan baan halka isku baranay marka markii waxay noqotoon meel source baan noqday lagu soo hagaago qof kastoo dhiig u baahan uu yiraahdo waxaan u baahanahay nooca dhiigaasa inaan markaa sidii uu ugu baahiyo marka sidee qofka dhiiga u baahan iyo kala lagu shubay qaab noocaas ugu xidhaa badanka inta badan waxay la soo xidhiidha qofkii bukaanka ama qof ehelkiisa ah yiraahdo waxaan u baahanahay dhiiga noocaas tusaalahan minus baan u baahanahay waxaan uga baahanahay isbitaalka halka waxaan uga baahanahay magaalada nooca marka information noocaas ama warbixinta noocaas aan uu ku baahiyo Facebook-ayga qof bukaana u baahan tusaalahan qof bukaana u baahan dhiig minus wuxuu uga baahiyaa isbitaalka guud ee Hargeysa lambarka laga xiriirayaan waa inta marka dadku inta badan iyaga ama faalooyinka ka bixeen ana soo shubay ama way sii share gareeyay laftoodu way sii qaybiya marka qaar waxa kula soo hadlay qofka oranaana u tagaya marka qaar waxa sideeda ila soo hadla qof markuu tan oo kala arkay uu dhahnay dhiigaygu waa nooca waxaan doonayaa inaan shubo marka waxa dhici karta anigoo imika kale 2 daqiiqo 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo ka hor qof ila soo hadlay inuu qof kale uu dhiig baan baahan marka xataa markii si direct ah iyaga laftoodu xidhaa la marka garaa qofkaas ku soo shubay marka ma Hargeysa inta badan aad hawshan ka wada mutawacnimada amise gobolada kale ee Soomaaliland ma Hargeysa kuma koobna Soomaaliland oo dhan waan ka sameeyay laakiin xataa Soomaaliland oo dhan kuma koobna ilaa Soomaaliya liiga soo weydiiyay haday tahay Muqdisho haday tahay Kismaayo haday tahay goboladaas marka qaar ilaa dawladda deegaanka ilaa iyo Djibouti marka qotaan qofka jooga Muqdisho kale ama jooga Garowe kale ama Jigjiga jooga kale qaab nooce ah ayaad ugu baahaysaa marka ma si isku xidhaa qofka maadaama aad wada Hargeysa joogtid anu saan marka horeba sheegay waxaan adeegsadaa wax ugu badan adeegsadaa Facebook ama social media iyadoo aan markii dambe laftigeeda ka sii sameeyay WhatsApp group oo kale oo dhiigagiisku nooca baan meel WhatsApp ku ururiyo WhatsApp kan waan u dhigaa xagan kale Facebook uu baahiyo tusaalahaan anoo Hargeysa jooga waxaan u baahanayaa qof dhiig minus u baahan oo Muqdisho jooga lambarkiisuna yahay inta uga baahan isbitaal hebel halkaas marka fariintii aan baahiyay waxay gaadhaa dad fara badan oo meel walba jooga waxa dhacda marka qaar in isla qof Muqdisho jooga laga yaabo inuu dadkan Facebook isugu jirnay ama asxaabna inuu yiraahdo ana u soo shubaya markaas lagu helo marka qaar waxa dhici karta WhatsApp markan ku baahiyo inuu yiraahdo ana jooga ama ana ka agdhowba halka oo ku isaguna qofkaas si saab ugu tago Cabdilaahi ma jirtaa tusaalahaan kale dhiigadan qaarkood maadaama qaar ay garanaysaa ay yar yihiin oo aan inta badan la helin waa noocyada dhiigada ugu faraha badan leh ee dadku ku soo weydiiyaan ama dadka aad isku xidhaysid ee qofka dhiiga u baahan iyo qofka laga shubaya inta badan dhiig noocee weey dhiigaga ugu badan loo baxdaa mar walba waa dhiigaga loo yaqaan si guud reer balaad groupka ama dhiigaga ay yar tahay la helo adduunka oo dhan marka dhiigagaas waxay u badan yihiin dhiiga negative ka kale tusaalahaan ee negative ka B negative ka oo negative ka AB negative ka dhammaan dhiigagaas oo dhan waa dhiigag ay yar tahay in dalkeena iyo adduunkaba si guud la helo oo boqol ahaan mar walba way ka yar yihiin labada dhiiga ugu badan ee mar walba yani si guud loo heli karo oo balaaska iyo balaaska labada dhiig marka wixii aan inta ahayn inta badan mar walba waa mid loo baahan yahay inta badan waxyaabo dhacdooyin ah oo intii aad hawshan ku guda jirtay kula kulmay oo soo kartid dhacdooyinkaasi xusuus bay kugu reebeen way jiraan oo wax dhacda marka qaar qof bukaan oo lagu yiri dhiig buu baahan yahay intii aad dhiig laftigiisa u raadinaysay ama xataa iyadoo loo helay intii ama la hubinayay checking-ka qofka caafimaadkiisa ama loo shubayay ama loo diyaarinayay qofka laftigiisa u geeriyoon mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo waxa weeye adigoo qofkii hawsha lagu jiro geeriyoodo marka qaar waxa dhici karta in qofkii isagoo qof aad u hesho qofkii la hadlay oo dad ku yiraahdo saywani waan qofkii ama bukaanka uu geeriyoodo ilaahu naxariiste marka waxyaabahaas kale waxyaaba xusuusta kugu reebaya moogta kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Cabdi Muuse oo ah wiil dhalinyaro oo isku xilqaamay dhiig u raadinta dadka bukaanada ee ku nool deegaanada Soomaalida una waramayay Saleebaan Saxan Saxo haatan dhawaanahan waxaa baraha bulshada Soomaalida ku soo badanayay muuqaalada lagu sameeyo garaadka macmalka oo ay dadka qaar u qaataan kuwa dhab ah waxaana aad u adkaada in ay kala saaraan muuqaalada sheekooyinka dhabta iyo kuwa garaadka macmalka ah ee loo yaqaan AI-ga lagu sameeyo haddaba muxuu yahay garaadka macmalka sideese dadkaan aqoonta u lahayn ay u fahmi karaan waxaa sharaxaad dheeri ah naga siinaya Cabdinaasir Xirsi aw Cabdi oo ah bare ka tirsan jaamacadda Bariga Afrika haatana shahaadada PhD ka diyaarinaya culumta dhanka ammaanka internetka ee jaamacadda Tun Xuseen ee dalka Malaysia wariyaha BBC da Xuseen Xasan ayuuna u waramay
nidaamkan AI waa nidaam computer ama machine u shaqaynaya sidii bini aadanka maskaxdooda iyo caqligooda ay u shaqeeyo. waa nidaam awood u leh inuu qabto shaqooyin aad u fara badan una fakero sidii bini aadamka. waxaa ka mid ah nidaamyadan hadda cusub oo ay ChatGPT-ga iyo Google Bard-ka iyo nidaamyadaas oo dhan baa ka mid ah. cabdinaasir, waxaan la soconnaa in isticmaalka la xiriirta AI-da artificial intelligence-guna aada u soo kordhayo. marka waa sidee baad is leedahay isticmaalka garaadka macmalka iyo soomaalida? aad iyo aad u mahadsan tahay. nidaamka AI-ga waxaa loo isticmaalaa qaybo kala duwan, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto cilmi baarista. aniga hadda kula hadlaya oo ah arday cilmi baaris sameeya, nidaamyada ugu badan iyo tuuliska ugu badan maantaan u isticmaalo cilmi baarista waxay qayb ka tahay AI baa qayb ka ah. marka haddii aan usoo laabto isticmaalka soomaalida iyo AI-ga, soomaalidu meelo kala duwan ay u isticmaalaan, sida inay sawirada iyo fiidiyowga iyo barnaamijyadaas oo dhan ay ku sameeyaan, sida aynu maalmahan baraha bulshada aynu ku aragnay. marka nidaamkan AI-ga siyaabo badan baa loo isticmaali karaa, sida turjumaan, in wax lagu turjumo, waxbarashada loo isticmaali karaa, iyo qaybaha caafimaadka loo isticmaali karaa, la dagaalanka wararka been abuurka iyo wixii lamid ah loo isticmaali karaa. marka meel aad u kala duwan ayaan u isticmaali karnaa nidaamkan AI-ga. sidaad ka dhawaajisay muuqaalada dhowaan baraha bulshada lagu arkayey ee aadka loo isticmaalayey, weliba dadku aysan kala garanayn inay tahay muuqaal dhab ah iyo muuqaal AI lagu sameeyey. marka bal haddii aad la socoto iyo sida lagu kala ogaan karo kan saxda ah iyo kan AI-da ah muuqaalka. waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. horta sawiradan iyo fiidiyowgan baraha bulshada maalmahan oo dhan wareegayay waa qayb ka mid ah nidaamyadan AI-ga, gaar ahaan qaybtan la yidhaahdo generative AI oo ku bees garaysan wax la yidhaahdo deep learning. marka nidaamyadaas waxaa lagu abuuraa wax la yidhaahdo deep fake, oo runtii waxa weeye markii laga hadlayo AI-gu wuxuu u kala baxaa nidaamyo aad u kala duwan. marka waxaa la isticmaalay nidaamka ugu khatarta badan oo ugu advancedsan markii loo fiiriyo nidaamyada kala duwan ee AI-ga. marka nidaamyadaas marka waxa ay abuurayaan in sawiro iyo fiideo u eg qofka bini aadanka ay sameeyaan. marka dadku waxay ku kala saari karaan, tusaale ahaan weli ma aysan gaarin in nidaamyadanu ay 100% u ekaysiiyaan qofka bini aadanka. marka mar walba waxaa ku jira errors baa ku jira. tusaale ahaan qofka bini aadanka inuu yeesho 3 gacmood oo kale, mararka qaarkood waxa weeye sucaac baa ku furan waxa waaye gacmihiisa iyo meelaha kaleeto. marka hadduu qofku si toos ugu fiirsado wuu kala fahmi karaa waxaan inuu yahay AI iyo inuusan ahayn. waa tahay muuqaaladan arkaynay dhowaanahan ama sheekooyin ama jilid ama xataa waxaa la arkayay muuqaal dad duulaya oo kale. marka waxyaabahaas oo dhan marka la eego, dad badan oon aqoon u lahayn AI-dan ay baraha bulshada ka arkaan, sidee looga dhaadhicin karaa waxan maaha wax dhab ah? waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. bini aadanku waxa weeye ilaahay awood buu siiyey, awoodoodu waa limited, oo dee qof bini aadana ma duuli karo. marka qofku hadduu arko waxa weeye nidaam qof duulaya, waa inuu automatically u fahmaa inuu yahay nidaamkanu nidaam AI ah, uusan ahayn nidaam real ah. waxa weeye waxyaabaha qofka bini aadanka uu ku kala garan karo waxyaabahan AI-ga iyo waxaan ahaynna waxa waaye waxa qofka bini aadanka oo de reality-ga wax ka baxsan ayaa lagu sameeyaa inta badan nidaamyadan AI-ga. soomaaliduna markaad fiiriso siday uga faa'iidaysanayso ma ahan sidii la rabay, oo de nidaamyadan waxay inta badan kusoo sameeyaan sawiro iyo fiideo anshax xumo ah oo aan aad u wanaagsanayn. marka waxaan rajaynayaa dadka noocaas oo kale ah oo nidaamyada isticmaalaya inay dhanka positive-ka ay bulshada ay ugu soo gudbiyaan. codkaasina wuxuu u dambeeyey idaacaddeenii saaka oo aan soo saaray inala socodsiinay anigoo cabdishukuur haybe. intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.